أنا كوسهرة guddigan iyo magacaabistiisu waxay u baahan tahay marka u horeysa meesha laga magacaabayo guddiga laftigeedu inay tahay meel tala gacan ku haysa dabcan waa loo baahan yahay Soomaali inay wada hadasho laakiin waa inay jirtaa arintan in marka hore loo fahmo si sax ah oo horta la isla ogolaado dalkan horta muxuu u dumay dad dhintay oo quburo ku jira qof maanta xisaabinaysa ma jirto laakiin waxaan xisaabinaynaa taariikhda si aanan khaladkii shalay oo kale ugu celin marka hadaanan heshiis ku ahayn dalkaani muxuu u dumay kuma bay heshii karnaba dalkaasi dib loogu dhisay qaar badan oo anaga naga mid ayaa waxay la nool yihiin taariikh oo qaldan marka inta taariikhdaas la isla saxayo oo meel leesla dhigayo khaladkii dhacay waxa adkaa doonto in la magacaabo guddi intaas waxa dheeriyay guddiga la magacaabay already magacaabistiisa waa ku dhintaba marka hadda wax nolol uu leeyahay oo laga sugayo ma laha waxa ku soo hartay ee guddiga waa ka baxay ninkan odaga iyo kama tirsaneen iyo markii uu hadlay ee dadka Soomaaliyeed ay ka kaceen in la dhaho kama tirsaneen macna ma sameynaysa waxay ahayd markii horeba dadka laga dhigayo guddiga in laga fiirsado oo ay yihiin dad nadiifa welina intaas kelima welina qabada ay keeni karto guddiga iyo hadalkan hadda uu keenay iyo guddigan dhisan caqabad intee la eg bay ku keeni kartaa wada hadaladii Somaliland iyo Soomaaliya maxaase hadda la isku aamini karaa oo dambe maadaama mid kamida guddigii uu sidaan u hadlay guddigaas warqada lagu qoray laftigeeda ayay ku dhinteen guddiguna dhibaatadu ma aha generaalkan kaliya hadla ma ahe kuwa kale oo ku jira asaga la mid ah marka guddigaas warqadii lagu qoro ku dhintay guddi jirana ma aha waxna kama soo baxayaan waxna soo kordhinayaan xanuun jiray bay si xanuujinayaan marka gibi ahaanba waa shut down kuwaas waa in meesha laga wareejiyo intaas waxa dheeri ah intaan nabad laga doonin koonfurta waqooyiga Soomaaliya aniga hadaan reer koonfurta lafteena maxay heshiis kuna Soomaaliya wili si sax u mooda hadli marka waxa la rabaa inta qaar naga mida ay aaminsan yihiin in khalad ki dhacay ay qolo u maleynayaan ama ay shakhsi u maleynayaan ama oo qalad ki dhacay oo san meel saarneen nimanka hadii loo tago oo dhahaan dhibaan geysanayna yaa dhahay dhibka ana qaatay yaa dhahay dhibka ninkaas iska lahay yaa dhahay ninka tiimkaas iska lahay dhibka dhacay qaran dhama dumi markuu qaran dhan dumi cid loo raacdo male markaas waxa la rabaa in la dhaho waa leeshina ayadoo aqliyadii qarankaas lagu dumiyay laftigeedii ay wili taagan tahay waxaana cadeynaya hadalkana cadeynaya